haddii aadan sidan samayn waxa aad noqonaysaa bakhayl rasmiya oo aan biyo ismarin qofka ficilkan sameeya waxa uu ku sifoobaya sifada bakhaylnimada oo ka mid ah mid ka mid ah tilmaamaha ugu foosha xun ee qofka bini'aadamka uu yeesho nabigana naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee waxa uu yiri xadiiskan isaga ah albakhiilu man dukirat cindahu walam yusalli calaya bakhiilka rasmiga ahi waa midka agtiisa la igu xuso oo aan igu salliyin sidaa darteed nabigaan ku wada sallinno allahuma salli wasallim wabaarik calaa nabiyina muxamed in nabiga lagu salliya arrin caadiya ma aha sababtoo rabbi subxaanahu wa tacaala ayaa waxa uu ku leeyahay qur'aanka ina allaha wamalaa'ikatahu yusalluuna cala annabiy yaa ayuha aladiina aamanuu salluu calayhi wasallimuu tasliiman ilaahay iyo malaa'igtiisu waxa ay ku salliyaan nebiga duulka iimaanka laga helayo idina ku salliya nebigiinna sidaa darteed nebiguna waxa uu sheegay man sallaa calaya waaxidatan sala allahu calayhi 10 oo kama qaala rasuul qofkii hal mar igu salliya isagana ilaahay ayaa 10 jeer ku sallinaya haddaba marnaba ha ilaawin salliga nebiga joogtay si aadan bakhayl u noqon aad baa u mahadsan tahay